xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in guud ahaan dalagyada Soomaaliland ka soo go'ay ay ka badqabaan dalagyada dawladda Soomaaliya aynu dariskanahay ay sheegeen in laga helay sun taasi oo lagu arkay suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumisad iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo ay weheliyeen khubaro iyo mas'uuliyiin ka tirsan waaxda dhowrista tayada ayaa waxay xaqiijiyeen in xarunta hay'adda dhowrista tayadu ay baaritaan rasmi ah iyo laabab casri ah u dirto guud ahaan dalagyada dalka imanaya kuwaas oo lagu soo baaray xarumo caalami ah oo ka jira dalkaasi isu tagay Imaaraadka Carabta. waxaana sheegeen in guud ahaan dalagyada Soomaaliland ka soo go'ay ka badqabaan xanuunada laga helay dalka aynu dariskanahay ee Soomaaliya. ugu horeyn gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo halkaasi ka hadlaya ka warmay baaritaanadii kala duwan ay ku soo sameeyeen siirarka imanaya Soomaaliland. wasiirka beeraha oo in muddo arrintan aanu maanta shaacinayno aanu ka wada shaqeynay arrintan oo la xidhiidha cilmi baaris lagu sameeyay cuntada dalka laga cuno ay ku nool yihiin dadka Soomaalida cuntadaas oo ahaa dhowr shay oo kala duwan oo cilmi baaristani ay intay ka ururiyeen dalka aynu jaarka nahay Soomaaliya Muqdisho caasimadiisa ay ka ururiyeen dabada cilmi baaris laga soo saaray taas oo la yiri waxa aad iyo aad ugu badan wax la yiraahdo mycotoxins taas oo keeni karta xanuuno badan khaasatan xanuunka la yiraahdo liver cancer ama beer ku dhaca annagoo cilmi baarista ka duulayna ayaanu ka wada shaqeynay wasaaradda beeraha sidii aanu itemada ama shayada la soo baaray aanu suuqa Hargeysa intaan uga qaadno anaguna soo baadno marka waxay ahaayeen 5 shay iyo mid kale oo dheeraad ah oo aan ku darnay 6 waan soo baadnay 6daas oo ahaa galleydo markaa tii cadeyd iyo tii guruudiga ahayd yellow ahayd garowgii oo isna ahaa kii cadaa iyo kii casaaba iyo qamandidii waxaan kula ku darnay heedin oo ku darnay inaan soo baadno maadaama hay'adda dhowrista tayada ay u xil saaran tahay baarista hubinta iyo ilaalinta tayada agabka dalka soo gala iyo ka dalka laga soo saaro iyo ka lagu isticmaalaba waxa aanu cilmi baaris ku soo sameynay 6 maado ee aan soo akhriyay annagoo ka duulayna researchkii media kana laga hadlay la yiri dalka Soomaaliya ama dalka cuntada ay Soomaalidu cunto waxa laga helay mycotoxins aad u badan waxaanu halkan markaa ku haynaa natiijadii aan ku soo baadhnay annagoo ku soo baadhnay dalka dibadiisa dalka Imaaraad ku soo baadhnay lab aan hubno tayadeeda iyo aqoonsigeedana aan ku kalsoonahay ku soo baadhnay kana soo baadhnay 5 aflatoxin oo kala duwan sida ku cad research ama cilmi baarista aflatoxins kaasi markaa waxay leedahay limit oo heertayeed ah limitka markaa inaanay dhaafin natiijadii soo baxday waxay ahayd intii oo dhan in wax dhib ah iyo wax aflatoxin ah oo aan ku aragnay aanay jirin markaa natiijadii waa taas weeyaan waxaananu ka qaadnay suuqa Hargeysa ee alaabta laga iibsado taamicinaheedu ma aha inaanu halka ku joojinayno annaga wasaaradda beeruhu waa ka shaqeynayna sidii aanu baaris joogto ah cuntadan iyo wixii la midaba ee dalka gudihiisa lagu cuno ama la keenaba aanu ilaalin lahayn tayadooda waxaanu markaa aanu doonaynaa mujtamaca Soomaaliland cilmi baarista Muqdisho lagu sameeyay ee annaguna aanu baarista ku sameynay Hargeysa in aanay khusaynin inaga cuntadeenaas aanu soo baadhnayna ay tahay cunto wax dhibina aanu ku jirin. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Muumisad oo halkaasi ka hadlaya isniiftiimiyay sida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan ay u dhowreen siirka iyo dalagga kala duwan ee ka soo go'aya beeraha Soomaaliland. waxa muddadii u dambeysay muddo kooban inaga xito runtii waxay dawladda Soomaaliya aynu jaarka nahay ay magaalada Muqdisho iyo Bakaaraha ka qaaday Bakaaraha dhexdeeda ka qaaday saamballo muxuu ahay raashinka dalka ka soo go'a
runtii ay sheegeen inay xanuun ka heleen markii aanu taa ogaanay waan la wadaagay runtii guddoomiyaha dibadna waxaanu isdiri sidee baynu markaa inagu maadaama Soomaaliya laba dawlad baynu ku kala nahay iyagu hadday xanuun ku sheegeen dhulkoodii ama raashinka waddanka ka soo go'ayay Soomaaliya mujaarka nahay dadkana way sheekeeyaan waxay soo intalo waxaan marun baan soo abeen dibadna waxaanu go'aansanay in anaga iyagu ay hay'addu aanu ka wada shaqeyno inaanu saambal ka qaadno wixii dalkeena ka soo go'ay waliba waxaanu saambal ka qaadnay dalagii sanadka soo go'ay iyo kii sanadkii hore soo go'ay baanu saambal ka qaadnay dibadna waxaynu u dirnay caalamka meeshii aan imaaraadka loo diray muddo badan baan runtii sugaynay oo muxuu ahaayay in jawaabta aanu helno si aan bulshada ula wadaagno in waxa dalkeena ka soo go'ay waxaanu ku jiro waxyaabaha runtii aynu saambal ka qaadnay waxa banahay gelida oo laba nooca taas iyo cadaanka qamadiga oo dalkeena iminka soo saarnay saambal laga qaaday oo laba nooca waxa laga qaaday gorowga oo isaguna laba nooca waxa laga qaaday heedi oo iyaduna muxuu ahaay saambal laga qaaday inta shay ee dalkeena aynu ka qaadnay saambalkiisa aanu u dirnay waddanka aynu jaarkana imaaraadka waxa ilaahay maadiyay in muddo aanu sugaynay kooban jawaabta inaynu helno natiijadii soo baxday in haba yaraatee raashinka waddankeena Soomaaliya ka soo go'ay aanu xanuunka Soomaaliya lagu sheegay ay dawladda Soomaaliya bakaara ay ka qaaday raashinkeega ayna inagu shaqo ku lahayn marka sidaa darteed baanu go'aansanay aniga iyo guddoomiyaha Soomaa guud iyo tiimkan odayaasha guddidiyo inaanu xafiiskan hay'adda tayada xafiiskan aan ku kulano oo midiyaha la wadaagno shacabkeena aan u cadeyno in gelidii sanadkan soo saarnay iyo qamadiga aynu soo saarnay iyo haruurkii aynu soo saarnay iyo waxyaabihii dalkeena ka soo go'ayay kala duwanaaba ayna haba yaraatay xanuunka Muqdisho laga sheegay ayna xanuun waddankeena aanu shaqo ku lahayn taasaan inagana inagu yeernay inaan la wadaagno natiijadana waa hawlkeena taala inaan wax xanuun aan raashinkeena waddanka laga helin waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay mar labaad u mahadceliyo guddida oo runtii mas'uuliyadii qaranka ay qaatay aniguna ka wasaaradda beer ahaan aniga iyo hay'addu waxaanu iska soo galnaa meelo badan meelahaasaan ku wada shaqayn doonaa waxay shacabka reer Somaliland runtii u jeesteen inay dalkooda wax kala soo baxaan taasi waxa ay barnaamijkii iyo ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudan Muuse Biixi Cabdi inay dadka reer Somaliland dalkooda wax kala soo baxaan si aan uga maarano daqiiqda mar walba dhibaatada inagu ay dhacday mar walba la soo qabanayo hay'addu ay ku daba jirto iyo bariiskaas iyo baasas aynu uga maarano adduunka waddan kastaba waxa isoo gudihiisa ka soo go'o isticmaala marka waxaynu ku sii sinqaynaa haddii alla yiraahdo inaynu dalkeena wax kala soo baxay cunno anagu hay'addan waxaanu kala shaqayn doonaa mar walba la wadaagaynaa waxaanu soo saarno in mar walba aanu kontaroolka aanu haybaadhaan dibadna aanu caalamka aanu dadkeena la wadaagno in wixii dalkeena ka soo go'ay oo caafimaad qabo marka waxaan leeyahay xanuunka dawladda Soomaaliya ay ka sheegtay adduunka u sheegtay wuxuu ahaa runtii xanuun laga helay Muqdisho dhexdeeda waliba saambalka ay bakaara oo qura ka qaadeen marka bakaaru ku gooyay Somaliland haddana waddanka jaarkanaay xanuunkaas anaga nama soo gaarin shacabka waxaan u bashaareynaa inay dalkooda wax kala soo baxaan ay si laba laabaan wax soo saarka dalka